لحياتي قرآن. رحمن يا رحمن آدم كو قيمي marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam asagoo saxaabadiisa raba inuu arinta taabsiyo ayaa wuxuu ku yiri qiso u soo qaatay atharkuna waa qiso saxiix xadiidkuna waa xadiid saabida wuxuu ku yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam majmuuca reer banu israa'iil ayaa maalin meel isugu yimaadeen rag cibaado cibaadaysan jiray bahay waxay ka wada sheekaysteen aakhiro iyo wixii ku saabsanaa iyo asilada qabriga sakaraatul mawtka waxaas ka sheekaysteen markaas waxay dhaheen qayb ayaga kamid ah hadal soo darxiyo waxay dhaheen war ilaahay haddaan barino oo qubuurahan agteena qof kamida uu ilaahay noo soo noolaysiiyo oon interview ka qaadno dhahno war waran nafti laga qaaday intee in leeg baad dib martay intee in leeg baa xanuunku martay aanu weydiin aad u fiicnaan lahayd bidhahan reebanu sano albaabayna garaacin male waa niman imtixaan waxa arintaas oo wax qof bini aadam ku fikiri kara qubuurahan intaan dul tagno oon ilaahay barino inuu ilaahay dad noo soo noolaysiiyo aanu su'aalo weydiinna markaa hebelo sakaraatul mawtkaadii ka waran maxaa dhib ku gaadhay processkaad martay muxuu ahaa halkaasay la gashay arrintii way isku raaceen laba ragcadood bay tukadeen laba ragcadood markay tukadeen ayay ilaahay baryeen oo dhaheen ilaahayow qubuurahan qof kamida noo soo saar aanu su'aalo weydiin ducadiisa ahaayeen ilaahay baa markiiba aqbalayo nin baa gacanta ka soo saaray qabrigii qubuurihii ninka qubuurihii meesha ku cabaala mid kamid ayaa gacanta soo bixi iyo madax ayuu la soo baxay xadiidka naskiisu wuxuu leeyahay khilaasiyu lambu marka midabkiisu asmar buu midab Soomaali asmarka midabkan madowgana aan ahayn casaan meedhan aan ahayn midabka madowga xaqiisa xigay dhiig furan oo midab Soomaaliga iyo khilaasiyu wajhi wa bimacna nin midabkiisu asmar baa gacanta iyo madaxa soo bixiyay markaas wuxuu yiri maada turiiduna ya haula maxaad iga rabtaan su'aal ka gaxmo nin aad mar hore xabaash meesha aad ku ogeyd oo ku hebelo maxaad iga rabtaa meeshii waxay fadhiyeen oo dhanba waa burburay oo waxay weydiin lahaayeen naxdin qof qabriga intuu madaxa ka soo bixiyay yiri war maxaad iga doonaysaan su'aal ba intayna dhiibin ba arintay rabeen buu markiiba su'aal iyo jawaabtooda si wuxuu yiri maalinka dhintay laga soo bilaabo ilaa yawmina hada waxaan 100 sano ayaan qabrigan ku jiraa geeridayda 100 sano ka soo wareegtay 100 sano ayaan ku jiraa geeridayda ka soo wareegtay lam yahda anni sakaratul mawt hatta al'an xanuunka sakaratul mawt maalinka nafti laga qaaday qabtay 100 sano ka soo wareegtay geeridayda wali igama degin buu xanuunkiisa ee fad'u allaha limaka allah isoo bariya in ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maartay arinta iga sahlo sidaan ahaana dib igu celi buru fiirsada ikhwati fillah 100 sano ka soo wareegtay buu geeridayda sakaratul mawt nafti markii laga qaaday xanuunkii qabtana wali igama degin lam yahda anni yani xaraar sakaratul mawt wali igama degin xanuunkiisa 100 sano ka soo wareegtay buu geeridayda يعني هل كم حد كقاضن كرتا يعني علايس كإله سكرت قبر السؤال اللي ويديه يوحى صدق شوش نفط مركي قفك لقى قاضي حنون كقبتي بقول سنة كسر ورقتي ولي إجابة دقيم إلهي يسوى بريم ماشي أيجا والربين بيقول إلهي يسوى بريم يعني إلهي سبحانه وتعالى يخفي فيه إلهي يسوى بريم هل كيف السؤال شو هذا الدنباب الشربة ماشي بكوك العرين هذا الدنباب دول سكرات الموت كي أيا ما أرتي أمنك حنون كيسي هيا حويان هذا الكلام جر هلك waxaanu ka qaadanaynaa waa meel loo wada socdo weeyaan naftaas la iska qaaday طبعا نصوصtu qayb badan ma noo sheegto in Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka uu si saalan laakiin naf qaaditaanku ama sakaraatulmawdka xaraarada qofka qabanaysa aad iyo aad bay u adagtay rasuulkana waa kiiri kaleey salaatu wasalaam inna lil mawti sakarat mawtku sakarat buu leeyahay سكر وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد يعني وأهرن آديات خطره مركا نحر كانوا تشيدا وحيته هل كاسا نسوق يسا قف كستو ديار قرو يعني كلتجين شهوة أدونك يعني كلت سكرات الموت كآد العلوس ينفك قاضيتان كاس عريس كاس بدن بقول كسنة نكح بالله يولي حنون كذي إجمد دقين يجي بأنه وذا سوق marka ilaahay subhanahu wa ta'ala qof kasto ilaahay bari inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sahlo
كلمة حقنا إله سبحانه وتعالى ونوافجيه قف كسو كدلال